xildhibaan maxamed cali xaaji axmed oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa maanta shaaciyay in mar labaad uu taagan yahay murashaxnimada xildhibaanimada golaha deegaanka ee degmada Berbera. munaasabaddan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay odayaal, cuqaal, waxgarad, siyaasiyiin, aqoon-yahan, haween iyo dhalinyaro kuwaas oo xildhibaanka ku soo dhaweeyay caleemo qoyan iyo eriyo gubaaba ah oo ay ku amaanayeen xildhibaanka. munaasabaddan ayaa ka qabsoontay deegaanka Laalays ee dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Berbera. ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Ismaan Cabdilaahi Axmed oo ku hadlayay afka duqa degmada Laalays, waxaana uu tilmaamay in xildhibaan maxamed cali xaaji axmed uu deegaankiisa u qabtay waxyaabo la taaban karo, isagoo sheegay in deegaanka Laalays xildhibaanku ka hirgeliyay goob caafimaad, biyo-gelin iyo sidoo kale dugsi waxbarasho. annagu haddaan nahay reer Laalays waxa weeyaan horta maxamed cali waan ka mahad sheeganaa marka koowaad maxamed cali haylo waan ka mahad sheeganaa. wuxuu noo qabtay waxyaabo la taaban karayo oo arrimaha bulshada ah oo ay ka mid tahay biyuhu, oo uu ka mid yahay waxbarashadu. imika iskuulka waxaa ka shaqeeya 10 macallin, tuulo 10 macallin iskuulkeeda ka shaqeeyaan ma jirto. gudoomiyaha dhalinyarada xaafadda wadajir ee magaalada Berbera Cabdirashiid Jaamac Madar oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in guud ahaanba shacabka xaafadda wadajir ay taageersan yihiin xildhibaan maxamed cali xaaji axmed. idinkaas soo sharaxay, idinkaas ka soo dhex saaray, annaguna waanu idinla qaadanay, laakiin maanta maxamed annagaa idin wadnaa. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiin iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadaasi iyagoo ku ammaanay waxqabadka xildhibaanka. anigu ka shakhsi ahaan iyo ka dhalinyaro ahaan iyo ka hal abuur ahaanba inuu maxamed mar labaad stagekiisa soo taago dadkana u sheego inuu murashax yahay. xildhibaan waa yaaraga waa xildhibaan ka soo shaqeeyay golaha deegaanka, ma aha xildhibaan ku cusub imika qofku cusub ay dooranayno. waa xildhibaan dhalinyaradii iyo dadkii doortay iyo bulshadiisii u hagar baxay. waxaanu diyaar u nahay mar walba inaanu soo saarno oo u codeyno codkayga siino xildhibaan maxamed cali xaaji axmed xaaji xuseen. Laalays diyaar ma u tihiin? oo ku taageeray waayo ah marka anigu iseegay waxaan idhi ninkan mooye nin reerka wadi karaa kuma jiro. sidaa awadeed baan ku raacay kuna raacaya imikadana musharaxiisa dambe aan diyaar u lahay inaan raaco oo wiilii hoobaysla garabtaa. horta maxamed waa dadkaan tuunsanahay ee aan aad ugu hanweynahay inankaa mar labaad in deegaanka saaxiib iskugu tagto hayb kastaba ha ahaato inankaa loo booqiyo in mar labaad ugu celinno. xildhibaan maxamed cali xaaji axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay bulshadii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi, isagoo sheegay inuu mar labaad u taagan yahay murashaxnimada golaha deegaanka ee degmada Berbera. waxaana xildhibaanku taageerayaashiisa ugu baaqay inay iskarab istaagaan oo ay u codeeyaan. waxaan idiin sheegayaa maanta shalay tolo rajaan idin tusay dhallinyaroy, waxaan idin tusay inaad tartami karaysaan baan idin tusay. waxay igu tijaabiseen meel halisa oo ninka dhallinyarada haddii uu ku sibiriraxdo uu cuqdad qaadayo oo waad dhacdaydo xanuun ka qaadayo ayaa igu tijaabiseen oo waan ka gudbay. maanta waxaa ii muuqatay dalka golayaashiisa waxaa ku tartamaya dhallinyaro, inaan ahay shakhsiga ugu mudan, inaan ahay shakhsiga ugu waaya aragsan, inaan ahay shakhsiga aan isleeyahay maanta wuu idin hoggaamin karaya. waxaan idinka codsanayaa ciddadaas in la cabira baa idinka hadhay in dhallinyaro dalka ay hoggaamiso. marka koowaad aniga hinjiskii labaad baa ii hadhay riixa. marka aniga ay gudbisaan way idiin bannaan tahay halkii aniga iga qaadeen ee ay iga riixdeen. munaasabadaasi markii ay soo idlaatay ayaa kumanaan gaadiid ah xildhibaanka loogu soo galbiyey magaalada Berbera, kuwaasoo hoon iyo damaashaad ku marayay wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada Berbera. Kamta Ismaan Cali 5TV Berbera.